بسم الله الرحمن الرحيم أخيارتا قيمها iyo qadarinta naga mudan meel walba dunida dacaladeeda ay ka joogtaan habeen wanaagsan waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan doorashadii midowga Afrika oo maanta ka dhacday magaalada Addis Ababa waxaa maanta qabsoontay doorashada gudoomiyaha midowga Afrika oo si weyn muddooyinkii dambe indhaha loogu hayay taas oo uu ku guuleystay Maxamuud Cali Yuusuf oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Djibouti dhanka kale xog ay heshay Topsan TV ayaa sheegaysa Soomaaliya in ay ka mid noqon lahayd tartamayaasha waxaana xilkaas isku soo sharaxay wasiiradii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaana Topsan TV ay ogaatay in Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan aysan iskaga harin tartankii ay ugu jirtay kursigan taa bedelkeeda siyaabaha kursigan ka reebtay ay tahay diidmo ay kala kulantay dawladda federaalka ee Soomaaliya sida ay iyaduba sheegtay war saxaafadeed ay qabatay bil ka hor dhanka kale xogta ay heshay xogta aan helnay ayaa sheegaysa oo cadeynaysa in Fawziya Xaaji Aadan oo ay iskaga harin tartanka balse dawladda federaalka Soomaaliya ay iyadu ka reebtay tartankaas lama yaqaan sababta Soomaaliya doorka ay galaangalka siyaasadda ee Afrika ay ugu yeelan lahayd ay iskaga reebayso Fawziya ayaa sida ay horay u sheegtay kursigan u tartamaysay sanadkii 2016 balse isaga hartay tartanka maadaama dawladda xiligaas ay ka codsatay in ay isaga harto tartanka Topsan TV laakiin ma cadeyn karto xiligaas in Fawziya ay u tartantay kursiga haddaan ku soo laabano doorashada maanta dhacday wareegii koowaad ee doorashada maanta oo hoggaanka Raila Odinga u qabtay waa wareegii koowaad waxaa laga wareegay wareegii labaad ee tartankaas xili uu wareegii saddexaad tartanka ka haray musharaxii ka socday Madagascar halka Raila Odinga oo haystay 22 cod iyo Maxamed oo helay 26 uu wareegii lixaad ee tartankaas uu ka haray mudane Raila Odinga taas oo sahashay in wareegii ugu dambeeyay ee keligii u tartamayay musharax Maxamed Cali Yuusuf isaga oo ku guuleystay 33 cod doorashadan ayaa looga baahnaa musharaxa ku guuleysanaya in uu helo 2 meelood 3 meelood 46 dal ee Afrika in ay codeeyaan waxaana la aadaa mararka qaad wareega toddobaad iyo wareegyo kale marka ay xaaladdu ay adkaato mudane Maxamed ayaa bedelaya Muuse Faki Mohamed oo u dhashay dalka Jad dalalka qaaradda oo dhan ma aysan ahayn kuwa codeynaya ee waxaa jira dalal ay ka qayb galin codeyntaas aan ku celiyo halkaas dalalka qaaradaha oo dhan ma aysan ahayn kuwa codeynaya ee waxaa jira dalal aan ka qayb galin codeynta dalalkaasi oo ay ka mid yihiin 6 dal waxayna kala yihiin Niger, Mali, Guinea, Gabon, Burkina Faso iyo Sudan waxaana dalalkaas looga joojiyay inay codeeyaan sababo la xiriira afgambi iyo dagaalo sokeeye ee ka jira dalalkooda Maxamuud Yuusuf oo 58 jir ah waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ka ahaa dalka yar ee istiraatiijiyadda muhiimka ah ugu fadhiya geeska Afrika waxa uuna xilka wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti hayay tan iyo sanadkii 2005 haddaba Maxamuud ayaa yiri hadafkaygu ugu weyn J'ai pensé qu'il était temps pour moi de mettre mon expérience et mes compétences au service de l'Afrique. Pour beaucoup d'entre vous qui est accrédité auprès de l'Union africaine, vous connaissez certainement mieux que moi le fonctionnement de la Commission et les méthodes de travail. I do have a clear understanding of what are our priorities and where the new Commission should start.
I also know that bureaucratic and administrative hindrances, let alone some irregular practices, will have to be handled properly. أصحاب السعادة السفراء الحضور الكريم، لا يسعني إلا أن أشكركم على تلبيتكم بدعوة حضور هذه الأمسية، وألتمس دعمكم لترشيحي كرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، آملا أن أكون عند حسن ظنكم، وأعدكم أنني لن أدخر جهدا